kulanti wanaagsan daawadayaal waa markale barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda qodobada ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka oo amar ku siiyay ciidankiisa badda in ay burburiyaan maraakiibta dagaalka ee dalka Iran iyadoo xiisadaas halkaas ka soo kororaynaha ay u muuqato mid gacan ka hadal ah iyadoo sidoo kalena ciidanka Iran iyagana amar lagu siiyay inay tisaas oo kale yeelaan tobanka dal ee ugu sareeya dalalka dadka dildila ama dila oo Soomaaliya ku soo baxday caalamka oo dhan iyo tobanka dal sagaal dal oo kamid ah caalamka Islaam kamid ah weerarkii iyo warcelis ka soconayay dalka Liibiya oo gacanta la isla tagay iyo ciidanka cusub shaqaystayaasha ee Ruushka oo isticmaalay hub markaasi wax gumaada oo ah ka kimikada ah iyo dalalkii ugu badnaa oo dagaalka ku soo biiray hay'adda caafimaadka adduunka oo ka digaysa iyaduna in xanuunku sii daba dheeraad doono iyadoo Israa'iiliyana ay ku dhawaaqday inay abuurtay guddi baara halka xanuunku ka yimid iyo cidda fadisay iyo Shiinaha oo isaguna ka wareegay kadib markii uu maqlay talaabooyinka Australia madaxdii ugu badneed ayaa arrintaas ka wada hadashay daawadayaal caalamka Islaam wadamadiisa ayaa loogu baaqay inay taageeraan waqtigan adag iyadoo shir dhinaca maqal iyo muuqaalka oo dhacay ururka iskaashiga Islaamku ay soo saareen warbixin qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan waa 23 Abriil 2020 waa maalinimo Khamiis oo markale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaasha qiimaha ku bilaabo samarkaan ugu horeysiye daawadayaal dalka Hindiya ayaa waxa uu sii wada baacsiga iyo dhibaataynta dadka muslimiinta iyadoo la sheegay in haatan ay ciidanka booliska dalkaas ay beegsanayaan dhalinyaradii ka dhiididay qorshihii loo yaqaanay qorshihii dhinaca markaasi wixii loo yaqaanay markaasi muwaadinimada cusub ama qodobka muwaadinimada Citizenship Amendment Act loo jiray kaasoo ka dhan ahaa dadka muslimiinta booliska ayaa la sheegay in ay wali ku raad joogaan dad dhalinyaro ah oo ahaa kuwii u dhaqdhaqaaqayay muslimiinta gaar ahaan kuwa ka tirsan jaamacadda caanka ee la Jamia Millia Islamiya ama JMI waxaa la sheegay in laba dhalinyaro ah oo caan ka ah jaamacadda isla markaana ahaa dadka dhalinyarada abaabula Miran Haydar iyo Safura Zargar labadaba la xiray sida ay sheegayaan warbaahin madax banaan oo dalka Hindiya gaar ahaan magaalada New Delhi ka soo baxda arrintan ayaa waxa ay daba socotaa iyadoo lagu eedanayo dalka Hindiya inuu wali dhibaateynayo dadka muslimiinta isla markaana uu dhibaato xooggan ku hayo dhanka kalena ololaha dalka Hindiya ka dhanka ah ee ka soconaya dalalka khaliijka iyo kuwa kale jaamacadda carabta ku jira ayaa sii xoogeysanaya mid kamid ah gabdhaha caanka ka ah dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta oo ah dal laga jecel yahay Hindida ayaa waxa ay sheegtay in ay tahay waqtigii la iska celi lahaa Hindida sheekha Hinda Al-Qasimi oo ah amiirad kamid ah amiirada dalkaasi ayaa waxa ay kamid tahay dadka sida adag uga hadlay arrinta iyadoo wargeyska The Guardian ee dalka Britain waraysiisay ayaa waxa ay sheegtay in aysan dooneynin in ay kiciso dadka isku tagay Imaaraadka Carabta laakiin waxay tiri in loo dulqaadan karin waxa dadka ay sameynayaan ayay tiri ka shaqaysanayaan ama ka xoogsanaya dalka iyaga iyo nacaybka faraha badan ee ay sameynayaan goordamana bartida Twitter-ka ayay sheekhadu Hinda Al-Qasimi oo amiirada ku soo qortay hadal ay tiri dhammaan waxay tiri waxaad ogtiin qoyska talada haya dalka isku tagay Imaaraadka Carabta waa kuwa jecel bay tiri ama jacayl badan u haya bay tiri dadka Hindida ah sidaas ay tahay hadana ma moogin ayay tiri dhibaatooyinka dadkaas ay sameynayaan iyo in ay lacagta ay halkan ka shaqaystaan u isticmaalayaan nacayb warar badan oo ay soo helayso warbaahinta carabta ayaa sheegaya in dadka ugu lacagta badan uguna markaasi shaqaalaha muhiimsan ee dalalka khaliijka ka shaqaystay Hindida ay ku jiraan ururka nacaybka muslimiintu madaxa maray ee hinduunimadu ay qaadatay kuwaasoo la sheegay in ay lacagtooda iyo qarashkooda iyo baraha bulshada isticmaalaan intaba ku weeraraan dadka muslimiinta waxa ay iska soo daba dirtay markaas qoraalo fara badan ku qortay bartida Twitter-ka iyadoo noqotay mas'uulkii ugu horeeyay ee qoyska talada haya ka tirsan ee si adag arrinta uga hadla waxay tiri anoo raba inaan ka jawaabo way tiri dadka miyaan nacabnahay anagu dadka waxay tiri Hinduuga dad badan oo dadka dalka isku tagay Imaaraadka Carabta waxay daawadaan aflaanta Hindida waxay sidoo kale badankooda ku hadlaan af Hindida ma jiro qof nacab bay tiri waxaanu doonaynaa ayay tiri nin dalkaasi ninka dalka xukumaya inuu noqdo Gandhi oo kale laakiin ma doonano ayay tiri inuu noqdo Hitler oo kale iyadoo markaasi u dur xulasa hogaamiyaasha ka kan ee ururka BJP ee ka kan ee dalkaasi qabsaday waxa ay sidoo kale ay soo hadal qaaday weerarka lagu qaaday culimada tabliiqiga oo ay qaarkood ku tilmaameen inay adeegsanayaan xanuunka dadka Hinduuga ba ku tilmaamay inay culimadaasi u adeegsanayaan xanuunka qaab jihaada oo ay doonayaan inay ku yareeyaan dadka markaasi Hinduuga ah ee dalkaasi u badan halkaan nagala socotaan daawadayaal oo wararkii waxa dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu amar ku bixiyay in ciidanka dalka Mareykanku ay burburiyaan isla markaana ay weerar ku qaadaan dhammaan ayuu maraakiibta iyo doonyaha dagaalka ee ciidanka ilaalada
kacaanka ee wadaadada dalkaasi Iran. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku soo qoray inuu amar buuxa u siiyay ciidanka militariga gaar ahaan ciidanka badda ee Mareykanka ee fadhiya badda Carbeed iyo gaar ahaan duleedka gacaanka Hormuz in ay awood iyo waliba u haystaan fasax inay talaabo burburin iyo dagaal ku qaadaan ayuu yiri ciidanka dalkaasi Iran. Hadday idin soo dhawaadaan ciidanka isla markaana ay khalkhaliyaan ama idin dhibaan waxaad amar buuxda u qabtaan ama aan idin ku waajib yeelay inaad qaadaan talaabo burburin isla markaana gabi ahaanba wuxuu yiri toogta dhammaan ayuu yiri qalabka military ee ku soo dhawaada oo ay ku jiraan doonyaha dheereeya iyo waxa uu yiri kuwa qoriyuhu saaran yihiin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inuu tan uga gol leeyahay in khalkhalgelinta ciidanka Iran ee ilaalada ah ay wadaan la yareeyo isla markaana la kibir jabiyo isagoo sidoo kalena sheegay inuu awaamirtan faray wasaaradda gaashaandhigga Pentagon. khubarada dhinaca militariga ee caalamka iyo kuwa qaadadhiga arrimaha amniga ee dunida ayaa waxay sheegeen inay tani tahay dhawaaq dagaal oo buuxa maadaama Iran iyo ciidanka Mareykanka ee baddu mar walba is hor iyo daba maraan maalin walbana isku sigtaan ayaa la yiri sidaas. Dhawaan ayay ahayd matoodkii hore markii la arkay in burburiyaha ama qosiyaha weyn ee Mareykanka USS Paul Hamilton oo markaas mushaaxiya gacanka Khaliijka ay ku soo dhawaadeen 11 doonyood oo qalab culus ay ku rakiban yihiin oo kuwaas oo qoryuhuna ay ammaanku ka rogan yahay kuwaas oo la sheegay inay khalkhal xoogan ay galiyeen tan iyo wixii inta ka dambeeyay Mareykanka cadho weyn ayaa soo food saartay. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay dawladda dalka Mareykanku ay qiimeynayso sirdoonkoodii halka uu ku dambeeyay gantaal dhinaca cirbixinta ah oo satellite oo ay direen waaxda ciidanka qalabka sida ee dalkaasi Iran ee ilaalada ah. Dhanka kalena dawladda dalka Iran ayaa war qoraal ah ciidanka militariga ah ee lagu gamo ee dalkaasi waray soo saartay iyo waxa ay siisay amar lamid ah kaas ciidanka kacaanka ee dalka Jamhuuriyadda Islaamiga waxa la farayaa in ay ka jawaabaan isla markaana ay qiimeeyaan balin amarka madaxdooda oo ay bixiyaan jawaab cad bali oo ay siiyaan ciidanka badda ee Mareykanka. ciidanka waxaad ogtiin inay yihiin baalid cutub kamid cutubka ugu awooda badan ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa leeyahay warka qoraalka ficilada khatarta ah ee halista leh ee ka imaanaya shisheeyaha cadawga ah ee gobolkeena ku soo duulay waxay khatar ku yihiin amniga qaranka ee Jamhuuriyadda barakaysan ee Iran baa lagu yiri. Sidaa daraadeed haddii ay ka soo gudbaan khadka gududan baalid ama ay sameeyaan khalad iyo xisaab la dhan rogay waxaad awood u haysataan in aad qaadaan jawaab cad baalid oo dharbaaxa leh. war qoraal ah oo markaas u eka mid dhiigu da'ayo oo ay soo saartay IRGCN oo ciidanka badda ee dalkaasi Iran gaar ahaan ciidanka ilaalada kacaanka ee la yiraahdo Islamic Revolutionary Guard Corps Navy waxayna sheegeen in ay taasi tahay jawaab celinta iyo farta kaliya ee Amerikaanku garanayaan ama kasi og yihiin ayaa lagu warka qoraalka. Arrintan ayaa loo arkaa in ay tahay khatar aad u weyn oo dunida ku soo kordhay. wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda daawadayaal farikaba qodna qodobo waaweyn iyo warbixin dhinaca diblomaasiyadda dhinaca kalena iyadoo bishii Ramadaan la naawulayo in ay maalinta bari'a Jimcaha dhalato hadii ay beedmo maadaama sida inta badan Islamic calendar-ka ama taariikhda Islaamka la aaminsan yahay inay Shacbaan ay dhamaanatay maanta ama maanta ugu dambayso ayaa waxaa soo baxaya walaac aad u weyn oo ku saabsan dadka muslimiinta ee ka xoogsada dalalka qarbiga in ay la yihiin meel ay mariyaan lacagihii ay dadkooda ku taageeri jireen. waxaana arintaasi tusaale kugu filan baa in sida uu sheegay Walpanko in ay hoos u dhacday lacagta la xawilo baa leeyahay in ku dhow 19% sanadkan ma bilihii hadarta ugu dambeeyay kadib markii bangiyada ay ciriiri aad u weyn galeen isla markaana ay yaraadeen xawaaladihii lacagta la mari jiray. Abu Haydar oo kamid ah dadka lacagta dira oo ka soo jeeda dalka Bangladesh isla markaana ku dhaqan magaalada Queens ee gobolka New York ee dalka Mareykanka ayaa Middle East ay wuxuu yiri waxaan ahay ayuu yiri mid aad u niyad jabay xaaladdu aad iyo aad u xuntahay waayo wuxuu yiri waxay xaaladaydu ay darsanaysaa buu yiri ama qalbigaygu u gubanaya maadaama aan hooyada iyo aabahay aanan u dirin buu yiri lacagtii yareed aan u diri jiray 47 jirkan oo Queens ku dhaqan ayaa saas u sheegay Middle East ay wuxuu wadaa gaari markaasi taksiila ah oo nooca lagu dalbado qalabka tiknoolajiyada ee Uber-ka la yiraahdo ilaa sanadkii 2015 waxaana uu degan yahay hal qol isaga iyo labadiisa caruur iyo xaaskiisa. wuxuu yiri anoo awalba la tacaalay noloshayda haddana waxa igu tiirsanaa buu hooyada iyo aabahay oo waayeen waxaan u diri jiray 100 ilaa 150 bishii haatan 100 iyo 150 hadii aan helaba meel aan u mariyo ma garanayo. waxa uu yiri waxa aan la yaabana sidii aan u gaarsiin lahaa waxay ku afuri lahaayeen. si kastaba ha noqotee mid kamid ah madaxda dadka muslimiinta ee magaalada Queens Casey Fozia oo
dadka muslimiinta ee xarunta ay ku tukadaan maamula ayaa wuxuu yiri ma aqaani ayuu yiri waxa dhici doona annaga lafkayga waan baahana xawaaladiina waa xiran yihiin annagana xaaladii way nagu adkaatay wixii aanu heli jirnay ee ka soo hari jiray wili rootiga iyaga iyo ismariska iyaga ayaanu dib u celi jirnay wadankii hooyo u diri jirnay wili laakiin hadda markay xaalku yahay way nagu adag tahay ayuu yiri si aanu sameeyno xilligan oo kale ayaa dadka muslimiinta ah aad isku xasuustaan iyadoo mar walba dad badan oo Soomaaliyeed oo kumanaan ku gaaraya ayaguna ay dadkoodii wadankii ku sugnaa ay caawiyaan xawaaladaha Soomaalida ayaa sidoo kale ka cabanayay bariyihii ugu dambeeyay oo dhan inay la tacaalayaan sidii ay lacagta dadka u gaarsiin jireen arrinta ayaa culays weyn ka dhalatay kadib markii inta badan bangiyadii ay xawaaladuhu isticmaali jireen la xiray taasoo khasabtay in ay xawaaladuhu lacagta ay qaadaan qaaditaankiina uu adkaaday kolkii la waayay diyaaradihii iyo isku socodkii markaasi adduunka oo aad iyo aad ciriir u noqday Horfadhi Media ayaa goor sii horeysay mas'uuliyiin ka tirsan xawaaladaha Soomaalida ah ee lacagaha laga diro ee loogu diro dadka baahan ee Soomaaliya lagu caawiyo waxa ay cabasho aad u xooggan ka muujiyeen in aysan dawladda Soomaaliya aysan kala qayb qaadanayn markan in ay dawladda Mareykanka ay kala hadasho in arrinta la fududeeyo iyadoo laga duulayo dhinaca arrimaha bini'aadanimada ah ee haatan taagan halka kala socotaan daawadayaal wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan aqdabo iyo warbixino waaweyn mar walba daawadayaal ayaa inoo soo socda waxa ay ka digtay in xanuunka coronavirus ama faafaha daran ee coronavirus-ka markaasi dad marka ah ee dunida aafeenaya uu waqti qaada doono madaxa guud ama agaasimaha guud hay'adaasi Dr. Tedros ayaa waxa uu sheegay in dalalka qaarkood xanuunka loo bigeenayo wuxuu ku sifeeyay bariyaha soo socda isagoo sheegay in qaaradda Afrika iyo qaar ka mid ah dalalka bartamaha koonfurta America ay noqon doonaan kuwa uu ku sii markaasi nagaado xanuunku isagoo ka digay inay dadku aysan dhigan wuxuuna sheegay in ka hortagga xanuunka iyo badqabka dadka aad loo sii badiyo waxa uu sheegay in xanuunka uusan ahayn mid sahlan marka la eego sida uu u sii joogayo iyadoo aan ilaa hadda loo haynin ayaa la yidhi dawo dabar goysa oo ka hortagta sida uu sheegayo Mr. Tedros wuxuu yiri adduunka oo dhan wuxuu ku mashquulsan yahay in xanuunka lala dagaalamo iyo in kale oo ku mashquulsan in xanuunka loo helo ayuu yiri wax lagaga hortago oo ah talaal meel mar ah jaamacadda Johns Hopkins ayaa waxa ay sheegtay ilaa hadeerto warar hordhacay soo saartay in ay jiraan ilaa iyo 55 shirkadood iyo hay'adood iyo dhakhaatiir markaasi ururadooda ah oo ku mashquulsan in ay helaan dawo markaasi talaal ah oo xanuunka la iskaga talaalo laakiin ilaa hadeerto aan wax meel mar ah usan jirin ku dhawaad 180,000 oo qof ayaa xanuunka u dhintay adduunka oo dhan 3 milyan ku dhawaadna xanuunka wala ildaran sidoo kale dalka Mareykanka ayaa ku dhow 50,000 oo qof ay ku geeriyoonayaan iyadoo ku dhawaad 800,000 oo qofna xanuunka la ildaran dalka Mareykanka ayaa hoggaanka la wareegay marka ay noqoto xanuunka iyo waliba dad dhimashadiisa iyo marka dhibaatada kale ee u dhaliyay qaybta dambe wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda daawada